بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياشينا qiimaha badan ee ku xiran channelkan Ismaaciil Aqiila ku soo dhawaada barnaamijyadeena oo Allah ay noogu barateen ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa insha Allah taala gaar ahaan waxaan barnaamijkan waa barnaamijkii sheeko iyo xigmadeeda oo maanta sheeko cajiib ah aan idinku wado biidhnillaahi albaari kahor intaan barnaamijka guda galin fadlan haddaad nagu cusub tahay walaal subscribe saar dhiirigelin ayay noo tahay adiguna waxba kaama dhibayso biidhnillaahi taala walaalkiina aad horumariseen oo aad horumarkiisa ka qayb qaadateen ayay ka mid noqonaysaa walaalkiina oo naafa aynu horumarka gaar rabo channelkan ayaa sidoo kale aad ku caawinaysaan maxaa yeelay Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albirri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isku caawiya yaa wanaagga ama samafalka iyo alla ka cabsiga ha iskuna caawinina in dembi iyo cadowtinimo ah ha isku caawinino ilaahay leeyahay إن شاء الله تعالى برنامجنا نقول قلنا سبسكرايب وحبك عمالك تفضل النصر إن شاء الله تعالى ضد متقينه وناقة جعل خيرك جعل إن شاء الله تعالى إني هلك القصة بحنا يا رجينا يا وايو إن ضدك إن حماها كلية إن سر الله قاد ولا في عيات ترى الدنيا آخر وتكل وتكون قوة اللباني نبي إن الله الباري فلن سبسكرايب صار هذا النبع صوته يصيده كله هذا البرنامج هذا كيشينا لايك تصار sidoo kale haddaadan ka helin aan like sidoo kale barnaamijkeena si muuqaaladayna email soo sare u gaaraan fadlan share garay muuqaalada biidhnillaahi albaari barnaamijkeena sheeko iyo xigmadeeda ayaan gudgali doonaa hadduu rabo weyne raali ka noqdo islaan ama marwo ayaa waxay reerkeeda u karin jirtay rooti subax kasta waxay ku dari jirtay hal xabo oo dheeraad ah oo ay ugu tala gashay qofkii waddada ama dariiqa soo mara inuu qaato waxayna u gelin jirtay qaanad yar waxaana subax kasta waddada soo mari jiray markii ay rootiga dhamayso nin geedo qorow ah oo shaqadiisu u socdo rootigana qaanada ayuu kala bixi jiray waxa uuna ku dhihi jiray isagoo hoos u hadlaya xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa wanaaguna adiga ayuu kuu soo laabtaa sidaa ayaa maalin kasta dhici jirtay ninkii geeda qorowga ahaa waddada ayuu soo maraa rootigana uu qaataa isaga oo ereyadaasi halhees ka dhigtay marwadii ayaa ka cadhootay hadalkii ninka uu ku celcelinayo maalin kasta oo istiri xitaa mahadsanid ma uusan dhihin muxuu kala jeedaa ereyadaasi waxay go'aansatay inay rootiga sun ugu darto markii ay damacday inay rootiga sumayso qaanadana u geliso ayaa gacanteeda hal mar wada gariirtay oo ay isla yaabtay markaas ayay rootigii sumaysnaa dabka ku riday oo ay rooti kale soo qaadatay kadibna qasnadii ayay u gelisay ninkii geeda qorowga ahaa ayaa subaxii imaaday wuuna qaatay rootigii isagoo ereyadii leh sida ay caadada u ahaydba dhanka kale marwada waxaa in muddo ah ka maqnaa wiil ay iyadu dhashay oo ay aad u jeclayd inay mar-uun hesho isaga oo nabad qaba habeenkii ayaa albaabka la soo garaacay markii ay furtayba waxay aragtay wiil daruufi ka muuqato oo albaabka hortaagan markiiba way qaracantay oo waxay xaqisatay inuu wiilkeeda yahay isla markiiba wiilkii ayaa ku yidhi hooyo waxaa mucjiso kugu noqotay inaan halkan taaganahay fogaan badan ayaan soo jaray waddadana baahi ba'an ayaan igu soo qabatay oo waxaan ku sigtay inaan dhinto laakiin nin geeda qorow ah ayaa hal xabo oo rooti ah i siiyey oo igu yidhi maalin kasta rootigan ayaan cunaa maanta adigu ayaa iga baahi badan oo hoo qaado markii ay ereyadaa maqashay ayaa wejigeeda isbeddelay oo murugootay waxay ogaatay rootigii ay maalintaa sumaysay inuu wiilkeeda cuni lahaa haddii qaanadda u gelin lahayd ninkii geeda qorowga ah laakiin ma dhicin waxayna soo xusuusatay hadalkiisa ahaa xumaanta aad samaysay adiga ayay kula joogtaa wanaaguna adiga ayay kuu soo laabataa waxaa hubaal ah inaad ka heli doontaan sheekadan asxaabta ku xiran channelkan YouTube-ka insha Allah tacaala mirahaad maanta beeratana beri ayaa guran doona haddaad xumaan samaysato beri xumaantii kugu soo noqon doonta haddaad wanaag samaysatana
beri wanaagii ayaa sidoo kale ugu soo laaba doona waa xikmadda sheekadeena ee maanta ku jirta guud ahaan barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa fadlan mar kale waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan insha allahu tacaala si meelo fogfog u gaaran aad share garaysaan haddii waxyaabaha aan soo dhignana aad ka hesheenna aad like garaysaan haddaadan ka helinna unlike waad dhihi kartaan sidoo kale inaad gambaleelka furataan haka ilowhawina channelka insha allahu tacaala si mar walba waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan idinkugu soo gudbino ay kuu soo gaaraan ama qofka ugu horeeya ee arkayaba aad u noqoto guud ahaan barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa alaaba barnaamijka waxaa idin daadihiya halkanna idinkaga soo tabiya anigoo ah walaalkiin saaxiibkiin ismaaciil maxamed cali halkaad naga daawanaysaanna waa channelka youtube-ka ismaaciil caqiila inta barnaamijkan midkiisa xiga aynu ku kulmi doonno nooli kulanti dambe oo xiiso badan haddii aan dhimanana waxaa inoo balan ah jannatul firdaws alaclaa jazaakum allahu khayra aljazaa